baan idin salaamaya asxaabta inoo soo dhawaada maalmahan waa walaalayaal aad baan idin salaamay aad baan idin salaamay intii ugu dambeysay baan isku update garaynaynaa waan u baahanay danta ayna haysa marka wax yar isoo dulqaata isoo dhawaada waxaan raadinayaa halkan muxuu ahaa وسؤال دويني دلك يا إسكالين وسؤال دويني دلك يا إسكالين وسؤال دويني دلك يا إسكالين يا عصبان نوبضة يسود هذا warkii hore war soo dhaaf la meedihina waa wasual dawayne dadkaya iskale aad baan idin salaamay dhamaantiin Abbas waan ku salaamay aad baan ku salaamay sharaf baad leedihiin waxaan raadinhayaa واو حدينا فرنتا وآمنوا ومدوا الشقية خير باشيغي runta waan sheegaynaa runta inta aan u baahannahay cid runta sheegta aan ka helaynana wax walba danta kalif inuu wariye noqdo oo live ka soo galo fadlan share baa la dhihi jiray maanta annaga taagan fadlan share baan taagan وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام أدبر من السلام يا أكاش ولك عبد الحليم أدبر من السلام وشقي أذينها لغادية وحير وأسكب ضينا أنا كان وقت بدل ما يستو إذا كان وقت بدلنا نكلم يا مرة dad waaweyn oo aad u qaali ah oo live ka ku wada jireen way jiraan oo rabo xogtooda in la daawado waxaan goor dhow daawanayay halgama diirane oo hadlayaan daawanayay Soomaali Cable miyuha wax yar baan daawaday marka waxa loo baahan yahay inaan chance na isasiino ugu meel badan bay ka kala imaanayaan ruux walbana wuxuu hayo ummadda u sheego waxaan maanta u soo galay hadda wuxuu ahaa waxaan xog cusub ka hayaa Cabdikariin Sheekh Muuse
cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax naftii hurihii baan xog rasmiga ka hayaa. goobjoogihii arkay saacado ka hor markii hadda bariga africa ay ahayd 4tii xilliyada soo salaamay ee xabsiga ugu tagay baan in badan wada hadlaynay. sidaa daraaddeed waan ku qasbanahay inaan inala wadaago oon Soomaali weyn iyo wadaniga dhabta ah iyo kacdoonka dhalinyarada ah iyo geesiga dhiidhiihaya iyo xumaandiidka dhammaantood aan la wadaago cabdikariin saacadihii ugu dambeeyay xogtiisa helay sida uu ahaa. waxaan u mahad celinayaa oo xogta ina soo gaarsiinaya walaalaha Soomaaliyeed ee gudaha Itoobiya jooga iyo walaalaha iyagu ogaadeen joogay xog ka haya. waxaa kale oo u mahad celinayaa dhammaan dadka ku howlan inay cabdikariin xaaladiisa la socdaan. aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynayaa dadaalka dheeriga ee ka muuqda aqoonyahan fara badan. hadda ka hor maanan heli jirin, maanta naalay noo tahay, farxad bay noo tahay. dad fara badan oo maanta dacada dhulka ka qaatay oo boorka iska jafaya inaan aragno waa khayr iyo barwaaqo. walaalayaal, qodobka cabdikariin oo information ka bixin doono allah sheekh maxamed idriis oo isagana warkiisa iyo warbaahin isaga sidoo u hadlay si lamida u hadlaysa iyadana qodob baan ka dhihi. live-kan marka kuma dheeraan doona intaan baan u soo galay. waad iga raalli ahaanaysaan waxaan waqti idan ka cunayo igu dul qaadanaysaan. codka inaan ismaqlaynaan aad u filahayaa soo ma waan ismaqlaynaa soo ma I hope inaan ismaqlayno. وعليكم السلام ورحمة. waxaan dhowrkii maalmood ugu dambeeyay aad ugu howlaneen inaan helo information rasmi ah oo ka soo baxa cabdikariin sheekh muuse isaga afkiisa ama cid dul istaagtay. alxamdulillah waan ku guuleysanay, waana inoo hayaa. waxaan ka soo bilaabay cabdikariin sheekh muuse imaatinkiisii xamar isaga oo diyaarad laga soo qaaday cadaado. halkaasaan ka soo bilaabay iyo dhowr saacadood ka hor sida uu ahaa. waxa la rajayn doono iyo waxa loo maleyn doono inay dhici doonaan ruux walba wuu saadaashan karaa. wajiyo fara badan bay leedahay, in fara badanna qoraalada waan ka sii samaynaynay. cabdikariin sheekh muuse waxaa la keenay magaalada xamar oo cadaado lagaga soo qaaday diyaarad. sidii xogta aan ku haynay waa kii run bay ahayd, gaadho qafilan lagu wareejiyey. wuu joogay, xabsi buu ku jiray, xabsi caadi uu ku jiray. waxaan moodaynay inuu raaxaysanayo, waxaan moodaynay inuu walaalihii la joogo, laakiin xabsi caadi uu ku jiray. waa kii afkaarta fara badan marka aan kala hayn adi calaa iyo itixaal soo wad oo maalinta ugu dambeysay baan rabaa marka inay hawsha ku sii socoto. cabdikariin sheekh muuse wuxuu inoo sheegay marka koowaad wuxuu soo salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, wuxuu soo salaamay lagu wargeliyay kacdoonka ummadda Soomaaliyeed meesha uu marayo. aad buu ugu farxay, aad buu ugu farxay. wuxuu yiri ummadda salaan ha la iga gaarsiiyo, dhafoor xumo mooyeen saacado ka hor jirdil fara badan kama muuqanin intuu xabsiga Itoobiya galay, laakiin way jiraan jirdilo loo geystay intii la soo qaaday wadada uu ku soo jiray. isagoo murugo yarna ka muuqato xoogaa dhafoor xun yaa xabsiga lagu soo salaamay cabdikariin sheekh muuse. waxaa suurtageli weyday in sawirro fara badan laynooga soo qaado, waayo xabsiga ridiisa waxaa ruuxii ku talagalay inuu information ka keeno ee soo salaamo lagaga siibay suunkii iyo kabihii iyo saacaddii iyo telefonkiisii. waxayna ku qaadatay muddo dheer inuu cabdikariin xabsiga dhexdiisa uu indhaha ku saaro oo xabsiga dhexdiisa waqti fara badan ku cuno. marka salaam fara badan uu ina soo salaamay. aad baan idin salaamaya fanaaniinta xasan kantal walaal, aad baan ku salaamaya dhammaantiin, iyo abwaaniinta bashiir hirmooge aad baan ku salaamaya. halgame urdoox soo dhawaada. cabdikariin sheekh muuse sida informationka xabsiga cidii ku soo booqatay ay noo keentay ay salaantiisa inoo soo gudbisay, wuxuu inoo sheegay inay geeyeen madaxweyne cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali khayre. waxaa ay dhigay buu shirqoolka madaxweyne farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali khayre, xaaska madaxweyne farmaajo, gabadha magaceeda ma aqaano, xaaska madaxweyne farmaajo, ninka la dhaho madaxa sirdoonka Sambaloolshe, bashiir goobe, hebel yaasiin. waxaa kaloo uu sheegay oo qeyb lixaad la kulahaa yuusuf garaad, isaguna qeyb lixaad la kulahaa
waxay ahayn dadkii markii maana qorayn oo taleefanka dhegtaan ku hayay ilaahay amarkii qalin shaabkaygana iguma jirin laakiin 12 ruux bay ahayn waxaa kaloo uu ku daray nin la dhaho hebel jaamac maxamed jaamac inuu yiri baan u malayn aadna u mun hubin waa inoo soo xaqiijin doontaan dadka Soomaaliyeed zamzam ibn Tamade oo salaamay eedo wuxuu inoo sheegay dad 12 ah inay shirqoolka lixaad dadaal lixaad la ku galeen aadna ugu dadaaleen in lagu wareejiyo Itoobiya على أي حال إسقى الله الله مدحوين فرماجو رئيس الوزراء علي خيره ينك الله ياسين يسمبلون شيء مركا أو وجادي إن لجين هي وحكيد ولا ليالو إذنكو إدلا ولا ليالو إذنكو إدلا هاي جينين إثيوبيا هي وريتشنين مقطع إذا الله إذن ما يستدي جيجنا الله إذن ما يستدي إذنكو إدلا بكويري ما يندلين إلهي أمريكي أنا أيوب دلان باوف عناد عبد الكريم شيخ مسعود كل واقعي أو يروح يدي بنا إثيوبيا إذنكو إدلا وحشر قولك كقيب قادن هي لنك إثيوبيا نك سفير كوان نور الدين إن لا دهان ملاين وحكى له ددا اللي حال لقى يسوقنا نك الله ده جبر أو ديارتنا الله صفولي بيدمنا كل سودقي مدحتوية مرك لقى سوق قاعد هي يسوق الله سعودي جاري جبر آد بيسوقنا ددا البدن وقلي عبد الكريم شيخ موسى markii laga diiday ay dadkii Soomaalida ahaa in hogaaminta moodayna uu aaminay ay ka diideen inuu gacantooda ay ku dilaan ay uu arkay in Itoobiya gacanta loo galiyay oo gaari la saaray garoonka aadan cadda markii lagu sii waday uu dagaal galay uu dagaalamay marka aad buu dagaalamay laakiin waxay ahaayeen ilaa 12 ruux waa lagu xoog badiyay waxa goobta taagnaa Yusuf Garaad oo diyaaradda la fuuli doonay ilaa Baydhabo sidoo inoo sheegay ninkii nafti huraha halgamaha geesiga ah warkii ugu dambeeyay saacado ka hor inoo keenay ee salaantiisana inoo soo gudbiyay kacdoonkii dhalinyarada iyo kacdoonkii wadaniga inuu cirka gaadhayna u geeyay sidoo inoo soo sheegay على أي حال ويسعت شاكدي قرون كبا ديارات ميليتري لقا قاضي وحاصير راعي قبر وحاصير راعي نور الدين وحاصير راعي يوسف قراد أو سبب إلى بيدبو أسوغوتي إلى هذا أنا فاهم واي سبب أسوغوتي sida gabar laga soo guursaday oo maxay oo dhalay isagoo hooyo gabar laga guursaday oo kala ku sameysay gabadha gurigeedii oo kale sida uu ilaa Baydhabo oo la socday waa su'aasha la yaab kala ahayd markaan dib ka maqlay waa soo xaqiijin doontaan waxaan rabaa in la ogaado xilliga iyada ay ku aadanayd Yusuf Garaad meesha uu joogay iyo saacadii uu maqnaayay dadka arkay goobjoog ahaa inay noo soo sheegaan diyaar ba loo yahay waayo information kan ay noo soo gudbinayo waa information uu noo soo gudbiyay صاحب كود ذلك إنه هالجمع عبد الكريم شيخ موسى حبسك كسو أركسونا سلامة إنفورميشن كسو قاضي ولو أي صورة تقولي ويد عدينتي هيدي إنه كاميرا لقلو وحول بقى يكو أتكاتي وحول بقى عقبضة فربضان حيتا ويقول شيء إني نفتي سوق خطر قشة هل ماشي أيته وحال لقدو لي قرون كي بيدبو وحال لديتشي قرون مقالة إنه يلي عن لين أو عيدا مدى عركة إتوبيا ليهين أو أدسوكو يالا waxaa loo sii dhaafiyay xabsiga weyn ee loo yaqaan Debrezayid ee duleedka magaalada Addis Ababa ku yaala oo meesha Cabdikariin Sheekh Muuse hadda uu ku jiraa Cabdikariin Sheekh Muuse oo dadaal fara badan ku bixiyaan dad ilaa 12 ah oo Soomaali ah iyo Ethiopian bay isugu jiray Ethiopiankuna la iga magac dhabay Nuuruddin iyo Gabre General Gabre labada la iga magac dhabay sagaalka kalena ay Soomaali ahaayeen waxa lagu wareejiyay wuxuu ku jiraa xabsiga Debrezayid haddaan dadka cusub ugu celiyo sagaalka ruux ee Soomaalida ahay 12 ruux uu sheegay Soomaalidu waxay ahaayeen sagaal ruux sagaalka ruuxna waxay kala ahaayeen madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Al Khayre xaaska gabadha hooyada qaran aan moodeynay uu qabo Farmaajo Yaasiin Bashiir Goobe Sambalolshe nin la yiri Maxamed jaamac Xasan ka xusuusaa uu ii sheegay iyo Allahumma sa'an Yusuf Garaad isoo wadayaan iloobay dad sagaal Soomaaliyeed uu sheegay oo dadkii aan ku xisaabtamaynay xaaska Farmaajo hooyo qaran ma aysan noqonin ummadda Soomaaliyeed meen matalin gabar Soomaaliyeed ma aysan noqonin iyaduna waa inaad ku dartaan inay dambiga door ku leedahay hooyo qaran ma noqonin walaal uma aysan noqonin geesigii dhalinyarada Soomaaliyeed hooyo ma aysan noqonin gabadhii marwada qaranka first lady marwada koowaad ee qaranka Soomaaliyeed ahayd ala ka soo tag Debrezayid aan u soo laabto waqtigu uu inagu wada yaryahay dhamaanteynba idinkoo iga raali ah Debrezayid wuxuu ku guuleystay inuu la hadlo Cabdikariin Sheekh Muuse oo salaamo isaguna isku sheego
salaana nooga gudbiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waliba anagu si khaas ah salaan iga sii gudbi baan ku maadaama information ka isla ogeyn isaguna Soomaaliyeed oo dhan dadka Soomaaliyeed uu ku salaamay wuu update gareeyay Cabdikariin Sheekh Muuse wuxuu sheegay dadka Soomaaliyeed kacdoonka inay sameynayaan inuu filaynin wuxuu sheegay in la bahdilan yahay maantana cid geesi ah cid Soomaali ah oo Cabdikariin Sheekh Muuse sheegata inuu rajeynaynin sidaa daraadeed isagoo aad ugu farxay buu yiri ummadda hal igu salaamo waana la guuleysan doonaa qorshaha ka dambeyn doona waana imaan doonaa waana muuqaalada dambe iyo maalmaha soo socda haddii alla idmo Cabdikariin Sheekh Muuse sidaa markii loo update gareeyay isaguna oo information ka bixiyay inuu dagaalamayna uu sheegay inuu yiri walaalayaal idinku idile ah gudbinina uu sheegay waqtiga dhan ee ninku la taagnaana 20 daqiiqo aheedo ay ku yaray recording iyo cid wax duubidna uusan haysanin wax badan oo information dabcan uu kala iloobay laakiin waxa suurta gashay inta basic aheed muhiimka ah Cabdikariin Sheekh Muuse inuu inoo soo gudbiyo jibdil badan kaba muuqanin markii laga reebo dagaalkii hore ee ridda uu ku galay oo laga awood bata markii hore la qaadayay uu ogaaday Cabdikariin Sheekh Muuse in Ethiopia loo wado halka marka ay marayso walaalahayga Soomaaliyeed information ka waan raadin doonaa waana wadi doonaa ruux walba oo Soomaali ah inuu dadaali doonaa waxaan kaashanaynaa oo information kan inuu garab istaagan saraakiil Tigray laftirkooda waayo iyagoo taxadaraya dana Ethiopia baahi fara badan baa haysa iyagu wax badan bay ku qasban yihiin haddana dad fara badan oo saraakiil Tigray oo inoo adeegaya jira iska dhaaf Soomaaliya waxaa jira dad fara badan oo inoo adeegaya oo Ethiopianka kala ah walaalaheena Soomaaliyeed ay ogaadeen joogana ilmada labada ka wada daadanaysa waa kii mid walaalaha Soomaaliyeed kamid ah waliba reer ogaadeen uu soo qorhay hooyo uu la hadlay oo waliba islaam weyn sidoo hadalka u dhigay ay ku tiri eeygi sharabaha xuma wuxuu sameeyay waan maqalay iyadoo jigjiga joogto eeygi sharabaha xuma wuxuu sameeyay waan maqalay ku tiri jigjiga joogto hooyada marka waa la ina wada taabtay qarannimada Soomaaliyeed baa la taabtay dadnimada Soomaaliyeed baa la taabtay geesigaanagii baa la humiliyeed gareeyay ku dayashada mudnaa ee ku dayan lahayn sida daraadeed dadka Soomaaliyeed xaq waxay u leeyihiin inuu ruux walba fulay noqdo haday heerka madaxda Soomaaliyeed marayaan waa inuu ruux walba fulay noqdo waa inuu ruux walba oo Soomaali isdifaaci waayo waa inuu ruux walba oo Soomaaliya bahdilaada dhabar ka saarto waayo horjoogayaashii madaxda uu moodayay baa fulay noqda sabab marka uu kaliya gees u noqdo ruux Soomaaliga maanta inta uu dadka arkayo uma furo inta uu dadka arkayo inta uu farmaajo arkayo inta uu khayr arkayo inta uu xaaska farmaajo la arkayo gabdhii Soomaaliyeed fuliyay noqonayaan inta xaaska farmaajo la arkayo gabdhii Soomaaliyeed ma dhiidhiyayaan inta xaaska farmaajo la arkayo oo meesha lagu gurgurtamayo dhihi weeday war soo gabar Soomaaliyeed ma ihi dhihi weeday oo ninkeeda kalarka qabsan weeday oo wiilka in adeerkeeda ra'iisul khayr kalarka qabsan weeday gabdhaha Soomaaliyeed fulinimo yaa tunka u saaran inay cabsadaan kuwa yar yar garbayba u leeyihiin ritiga dambe sanqaadkiisu leeyahay ritiga dambe sanqaadkiisu leeyahay la yaab mala dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed in la arko iyagoo cabsanaya la yaab mala wariye Soomaaliyeed oo cabsanaya in la arko annagoon wariye ahayn siyaasiyiin ahayn life ka inaan dhex taagno intaan cidna matala ka helino ku qasbani waan ku qasbana intaan wariyana matala ka helino intaan meel santo dhaxe oo afkaartaanada matasha ay ka helayso ummadda Soomaaliyeed meel ay haataba haday xitaa Ethiopia matasha waana musayna xuquuqdaanada Ethiopia hadana matasha xitaa waana musayna laakiin walina lama matalin wali rights ka naga looma istaagin information ka aanu baahanay walina looma istaagin haday xitaa Ethiopia matasha maanta diyaar baan nahay inaan aamusno laakiin inta aan ka helayna cidna matasha inta aan ka helayna cid runta sheegta inta aan ka helayna cid beenta diida inta aan ka helayna walaalnimadaanada cid isku dumta oo isku kaayeeyada life ka waan dhex taagnaanayna dhamaantaan saanu dhanna Cabdikariin Sheekh Muuse idin soo salaamay Soomaaliya hadalku in la tagine kacdoonkuna wuu og yahay geesiyadu ha wadaan hal la dhiidhiyo digniintii aan shalayta ilaa daraad bixinayna Cabdikariin Sheekh Muuse irbada qarqarisada inta lagu duro in isoo qoslahayo oo Ethiopian baan ahay oo isoo inuu miirkiisu dawladda qalbo wixii loo sheego hadlahaya in shaashada la inoo keeno waxaad moodaa inay yar daahi doonto waxaad moodaa in la fashiliyay waxaad moodaa dadka xabsiga laga soo gurahayay Cabdikariin Sheekh Muuse uu nujab dilay uu kufsaday uu kale dhigi jiray xoogaa iyaduna inay Soomaalidu ku baraarugtay oo jigjiga ay yar joojisay maamulka Ethiopia jigjiga jooga yar joojiyeen xoogaa inay dib u yar dhigaan
laakiin dhowr bilood kadib iyo bilo kadib iyo isbuucyo kadib sidii ninkii amxaarka documentarygii weynaa ay uga soo diyaariyeen adduunka uu diidi doono isaguna cabdikariin laga soo diyaariyo waa suuragal waan sii raalli ahaada koolka iga yara jarahaya intaasaan kusoo gabagabeynayay maanta wixii aan information noo waday wixii soo kordhana hadduu allaydma waan keeni doonaa aynu isku xidhnaano geesiguna ha dhiidhiyo inta aana ka bixin sorry culimada Soomaaliyeed afku idan maroor maxaadna khayaanteen oo microphone-ka masaajidka nagu khayaanteen maxaadna khayaanteen oo kitaab aad galeysaan siyaasadiina noogu dhex darteen maxaadna khayaanteen oo idinkoo macallimiin noo ah oo dugsiga idin dhigano barnaamijyaha idin gaarka iyo siyaasadihiina iyo kuwa meelaha kale ka keenteen afka noogu shubteen maxaadna khayaanteen culimada Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Idriis waxaan arkay ku hadlay wuxuu miiska ka soo qaadanayay oo Sheekh Maxamed Idriis uu laacay Washington Post aniga kaygana been buu u yahay Washington Post inuu run buu u yahay shacabka Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Idriis wuxuu yiri waa beenalayaal hadalka sida ka muuqata ee uu rabo fariinta inuu gudbiyo waxa Washington Post iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay qoreen miiska u saaran yahay shacabka Soomaaliyeed oo hinteediina ma daawanayo inuu waliba radiyo oo waxba khaldan u dhaw dooni runta Sheekh Maxamed Idriis oo aad u baahan tahay maxay tahay kliibka lugaha ka xiran yahay walaa geesiga Soomaaliyeed kliibka uu gacmaha ka xiran yahay geesiga Soomaaliyeed oo aragtay Sheekh Maxamed Idriis sawirka ay ciidanka Soomaaliyeed ee koofiyad guduuda ilaalinayaan ay garab taagan yihiin guday ma ahayn jigjigu ahaa wuxuu ahaa guday ma ahayn wuxuu ahaa aadan cadde international airport buu ahaa Sheekh Maxamed Idriis oo maxaa iskaga indhatiraysaa Sheekh Maxamed Idriis oo maxaa shacabka wax kacdoonkiisu uu baadil yahay rabta inaad ugu sawirto adiga iyo in idan la mid oo fara badan oo